waxaan rabaa in dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed aan ugu hambaliyeeyo bilashada munaasabada bisha Mawlid 1446 Rabiicul Awwal oo ku beegan maalintii uu dhashay suubanaheena salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ay waajib tahay qof walba muslim ah inuu ku farxo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jeclaado wax walba maxallaha uu ka hormariyo maxabada xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam marka dhammaan ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dibadda meel walba ay joogaan waxaan leenahay hambaliyo bilashada munaasabada bisha Rabiicul Awwal awgeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa iftiin adduunkan ilaahay soo saaray wuxuu ahaa nuurkii marka waxa haboon qof walba muslim ah in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jeclaado jecelkiisna wuxuu ku imaanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam in badan laga sheekay bani aadamka wax walba ay ka sheekayaan oo ay daa'iman way jeclaanayaan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam in siiradiisa shamaa'ilkiisa ummadda islaamka la baro gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed cilmiga diinka dadaalka ay wadaan علمدي ووينات عالم الإسلام وحيك قرين كتابة سيدا أوكل محل لها حلقات مركة أنت أردن النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أدوري إلهي جل وعلا ورفعنا لك ذكر ذكر يعني قرأ قاضي محمد مركة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيسة إلهي يا قرأ قاضي شاعرك وين حسام ثابت وقهد الله أيضا أو حيري وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد إلهي جل وعلا مقعيسة أي وحود مقع النبي صلى الله عليه وسلم محال الله مرور البوقف مؤذن كأه أشهد أن لا إله إلا الله ورهي وحاكو حقه وأشهد أن محمد رسول الله سيد أوكلا مقع النبي بوحالة كاني مقع إلهي فذو العرش محمود وهذا محمد النبي صلى الله عليه وسلم مقعيس محمود واي النبي صلى الله عليه وسلم مقعيس محمد واي إلهي جل وعلا مقعيس محمود واي مركا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أيا أماني إلهي محل القرآن إن بضل أماني وإنك لعلى خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم دبعد وناك دشر أيو إلهي إنه كسويها أيو أماني مركا النبي أماني أصحابتي ووينات أحسام ثابت شعرذي النبي يا أماني dadkii ka dambeeyay amaanay amaantiis marka anaga ku sharfoobayna marka dhammaan ummadda islaamka waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed in maxabada nabiga sallallahu alayhi wasallam aan badino aakhiru zaman waxaan joognaa maxabada ay yaraatay oo maxaan lahaay dadka hawadooda ay raaceen marka qofkii maxabada nabiga laga waayay munaafiq waay qofka iska dukanaayo iska soomaay iska salaaday munaafiqiinta way duktaan way soomaan way salaadaan laakiin qalbigooda ilaahay wuxuu ka saaray محبة يجعلك النبي صلى الله عليه وسلم مركا بشان سيقوني محل الله وحاءات وهبون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيس اللباديو أو أي نونغة زاد يخير شعب صمد ملبي جوغر وحان وباقينا إن بشان أي إسحريريان مساكين تلوك هالمية لسعفيو بشان أي نونغة بالمحبة بالمودة بالرحمة أي نغطة aysan noqon bil cadaawad iyo maxaa lahaay caalam islaami ku dhaxboortay aysan noqon oo shacabka Soomaaliyeed wanaag iyo khayrka ay soo kaalmeystaan nabiga sallallahu alayhi wasallam qiyamkiisa iyo maxaa la sharafkiisa lama soo koobi karo ilaahi jalla wa ala nabiyidi hore oo dhan ayuu ahaa imaamkooda iyo maxaa lahaay imaamkoodu ayuu ahaa sida aayada quraanka ilaahay uu ku sheegay nabiyada oo dhan ilaahay wuxuu ballan kula galay inay nabiga rumaayaan oo ay raacaan وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين مرك إلهي جل وعلا أيا مرخاتك نبي أردن أيا مرخاتك مرك النبي صلى الله عليه وسلم نبيدي نجهري أنبيدي هري وحيجي على يعني أمدي سكمل نقضان مرك ولا لو حنجوجنا آخر الزمان أو أمد ملك اللوض مركي أيراتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم كشيكينتيس أيراتي لان يردين أيكون مشغولين بنوني عيار وحن لو جوجين أيا لان يردين ماشي محبة النبي قال لهيد هذا قلبي وضو حاجلوي بنوني وحيابه محل ما لا يعني وأن لو جوجين مرك علماء الصوماليات
iyo dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan maxaa la ugu baaqaynaa in ilmaha looga sheekeeyo maxabada nabiga sallallahu alayhi wasallam shamaa'ilis looga sheekeeyo la baro xub nabi sallallahu alayhi wasallam xubbiga marka waxaa ka mid ah in nabiga maxaa la jeclaado la raaco awaamirti wixii uu na amray aan ku toosanaano wixii uu naga harayna aan ka harna shaacirka wuxuu yiri ta'sil ilaha wa anta tad'i hubbahu هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه marka qofka nabiga maxaa la jecel waa qofka hadiga nabiga laga helay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam raacaya badinaya salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam badinaya jecel ahlu beedka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtii ridwanullahi alayhim dhammaan jecel oo aan kala saaraynin ahlu beedka iyo asxaabu rasuul ridwanullahi alayhim ajma'in aan kala saaraynin dhammaantooda jecel marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ah muslimka ahlu sunna wal jamaaca ee maxaa la madhabtooda shaafici tahay oo ilaahay nagu maneystay aqeedada wanaagsan iyo طريقه wanaagsan ilaahay nagu maneystay waxaan aad u rajaynaynaa in la daa'imo طريقas wanaagsan bishaan ay ahaato bil baraka bil rahma bil khair bil isxiriirin bil maxaa la iscafin ay noo noqoto insha Allah ayaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay hambalyo sanadkan sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad barwaaqo iyo maxabada nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay nagu arsaaqo adduunkan intaan joogna maxabada xabiibkeen ruuyadiisa ilaahay nagu arsaaqo aakhire markaan tagnana shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam Allah nasiyo